muuqaalkan kore kaaga muuqdo dabcan markaad aragta indhaha ay qabteenba waa dareenta ciday yihiin. waa walaaleen reer Falastiin gaar ahaan reer Gaza caruurtoodii waxay isku dagaalayaan cuntadii macaawin ahaan loo siiyey haraadiga ku haray digsiga isku dagaalayaan laakiin saas ma mudnayn in saam taqaan ahlaan caruurta reer Falastiin gaar ahaan reer Gaza saan ma mudnayn abadan laakiin waa laga dhigay gaal ayaa u tashatay meel walba adduunka ka joogaan way u tashteen inay saan yeelaan go'aan ka gaareen wayna yeeleen laakiin waxaa cajiib ah dadkii walaaloodii ahaayeen isku diinkii ahaayeen isku nasabkii ahaayeen hal diin ay wada sheegtaan hal rabbi ay wada caabudaan hal nasab ay yihiin way ka hadli waayeen inay meel isugu imaadaan inta wadan maanta muslimiin ah inta wadan carab ah inay meel isugu imaadaan maanta way dhihi waayeen maanta bas waxaan ka hadlaynaa sidee Falastiin gaar ahaan reer Gaza aan intaan mutaqaana kaga celinayna kaga saarayna way dhihi waayeen si walba nooc u kulmaan laakiin dan kale u kulmaan laakiin arrinta Falastiin inay isu imaadaan yaa inta wadan adduunka ka jirta ee muslimiin ah sheegta inay hal meel wada fariistaan arrintaa waa ka hadli waayeen waluu fiirsaday gaaladana say doonta ka yeelanaysaa iska dhaafa inay ka celiyaan ay difaacaan iska dhaafa xitaa waa ay ka hadli waayeen shajaraad maanta inay isku imaadaan shajaraad way qaban waayeen arrintaas mutaqaana ku aadan Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa in ibtaa ka saaro kulli imtixaan adduunka ku jiraan adduunka sida waxaa loo joogaa imtixaan loo joogaa Allah subhanahu wa ta'ala qofka muslimka meel walba adduunka ku joogo mutaqaana imtixaamaya ay imtixaamaas ay ku jiraan way ka baxayaan insha Allah hadii adduunka mutaqaana ay ka bixi waayaanna rabbi subhanahu wa ta'ala aakhira iyo waxaan ka baryaynaa inuu jana ugu bedelo waxaan kale Allah ka baryaynaa qof walba mas'uulka arintan kan mutaqaana geysanayo oo dhibtaani mutaqaana geysanayo kan hadlaayo kan ra'yiga mutaqaana dhiibanayo qof walba qayb ka ah walow bixarfin waahid qof kaga qayb qaato Allah subhanahu wa ta'ala waxaan kaga baryaynaa inuu iqaab adduunka uu soo dejiyo aakhirna mutaqaana iqaab daran uu marsiyo aniga dhamaantiin aan wada duceeyno walaaleyna reer Gaza ilaa dhibta ka saaro